السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي تماشين ميري ملك استوى joogta waa idin salaanay. waxaad leen intii nagu cusub soo dhawaad intii hore nolol joogtay inaad baa mahadsantihiin. qasideena waxaan ugu bilaabnay wiil Xasan la yiraahdo. Xasan wuxuu ku shaqaysan jiray kaariyool amba gaari gacan labada soo taqaana. maalin maalmaha kamid ah waxa dhacday inuu isagoo shaqadiisa iska wato inaan hodan la aad iyo aad u qurux badan dukaanka ka hor shaqayn jiray eedadeeg u soo doonato. hadday u soo doonatana inantii uu arkay aad buu la dhacay runtii isaga aad buu soo jiidatay. adigu inantii way adeeg raashinayna qaadatay sidoo taqaanayna isaga adeeg u qaaday maadaama gaari gacan inay watay. haddii uu qaadayna gurigeedu uu geeyay wuxuu ku walaal ma isbaran karnaa. maya bay ku tiri adoo saana ma isbaranana maxaa ku jawaan buu ku dhadaan isbarano. maya bay ku tiri waa isma baran karno maadaama aniga nolol aad u fiican anugan ku noolahay adiguna aad noloshan ku nooshahay isma baran karno. okay sidii buu isagoo lahay qalbi jabsan iskaga soo laabtay. markii uu soo laabtay shaqadiisii uu iska sii watay. maalintii ku xigtay uu siiro kadiisa wada kulmeen isagoo niyadda aad ugu hayo oo ka fikiraya. hadday kulmeena wuxuu ku yidhi sidiisi lamida asbarano walaal. markaa maya bay ku tiri walaal isma baran karno anigu adiga kuma rabo dee inaad baratana ma rabo. adigu wax kasta ku qancin kartaa way ku qancsan. hadal xun oo dhibayo oo kastaana way ku tiri. adigu qalbi jab wallahi aad u weyn balka Xasan ka qaaday. waanu dee aadna uu jeclaaday inta runtii aad isaga shakhsi ahaantiisa qalbi jabkan ugu xun buu qaaday Xasan uuna tanaasuli kari waayay. dadana ugu qasbay inuu tanaasulo way sababta qofku isaguba u doortay qof soo jeeda rabana ma ahan inay aragta xataa miisan dooneen. adigu Xasan wallahi adigu sidii uu xumaaday dadkii dhan uu jaray keligii wuxuu iska noqday keli socod. markasta la meesha habiga bilaa buuqa abi doonan jiray si uu maskaxda ugu dajisto dad dhan muu rabin inuu arko. maalmo kadib jacaylka xanuunkiisii uu dul qaadan kari waayay inuu magaalada joogo uuna iskaga tegay. berbere uuna tegay. adigu berbere markuu tegay shaqo helay shaqo aad u fiicanna uu helay. shaqadiisii wuu iska shaqaysanayay lacag fiican wuu iska helayay. adigu inankii muddo 6 bilood noloshiisu daqiiqad isku bedeshay. ilaahayna uu kala garab galay. adigu 6 bilood wax ka ku maqnaa nolol ruux iskaga noolaa wallahi adigu qalbi jab iska lahaatay nolol aad u fiican iskaga noolaa. adigu soo laabtay. maalinkuu soo laabtay bakhaarku kaga shaqaysan jiray gaari gacanka ayuu soo hor istaagay isagoo gaari u leeyahay wata. uu ka dhaqaaqay wuxuu tagay guriga gabadho aad u jeclaa gurigoodii uu tagay. waana hodan sadoo taqaaneen gurigeedii uu aaday. hadduu aadayna waxa ku dhacday inuu isla ugu horeyntii markuu soo istaagay inuu arko runtii hablay asxaabihiinba ku dhahday wiilkaas wiilkii ma ahan miya. waa asagii bay ku tiraahday iyadoo aad u yaabanuu way anfariirtay way u qaadan weyday. wiil aad u labisan gaari ka wataa oon inaba aan caadahayn markay aragtay iyadaba u qaadanba weysaba. adigu habeenka ugu xigtay suuqa aaday roob aad u weyn u da'ay. taxi bay joogsatay. markaa gaarigana ay joogsatay waa gaarigiisa miya. adigu waxa dhacday gaarigii bay fuushay isagii bay aragtay deg bay siri maybu ku walaal hodan ha tegin iska saarno maadaama roob aad u weyn da'ayo xilliga gaari kala maraysan kara sida anaa ku qaaday.
waayahay bay dhahday way iska saarneen. laakiin waa sidee bay ku tiri walaa xasan waxa isbedelka intaan la eg isma bedeli kara miyaa buu ku yidhi. ilaahay agtiisa waxba kama aha. waa runtaabay ku tiri way iska aamusta. adigu halkiiba yar wada sheekaysteen. wuxuu ku yidhi haddaan xiriir samayno saad u aragtaa. asagoon wallaahi weli qalbiga ka jecel. haddaan xiriir samayno saad u aragtaa buu ku yidhi. waan ka soo fikirayaa bay ku tiri. ka soo fikiroo jawaabta ii keen buu ku yidhi. waayahay aduu hudheel bay sii mareen cashay sii qaateen. gurigeedii buu geeyey. gurigeedii hadduu geeyeyna sida taqaaneen gaadhigii ka degtay gurigiiba iska gashay. adigu gurigii markay tagtay wallaahi wanaagiisa kalgacalkiisa adigu u qaadan weyday. wallaahi wax la yaab lay ku noqotay. inantii nimco way yaabtay. adigu ugu dambeyntii adigu maadaamay lambaraantii soo kala reebteen markay soo kala tegayeen wasaabkay ka wada hadlayeen adigu in badan maalmo u ah. adigu labadii qof dib bay iskaga wanaagsanaadeen baa la iska dhihi karaa. laakiin sheekadeena dhammaadkeenu waa sidaas. kala soco sida heesaha barnaamijyada iyo wax walba cusub kala soco kuna xidhno.